kulanto cano wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aynu diiraddu ku saari doonana waxaa ka mid noqonaya mucaaradka hoggaanka madambeys ka gaaray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirar isdaba joog ah oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho xog faahfaahsan iyo sidoo kale warar dheeraad ah oo arrintaas la xiriirayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa qodobada kale ee aad daawan doontaan sidoo kale waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa si toos ah loogu eedeeyay in uu fashilinayo shirka mustaqbalka Soomaaliyeed kaas oo ka dhacaya magaalada Muqdisho hadaba maxay tahay sababta markaas loogu dhaliilayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu fashilinayo shirkan xogo dheeraad ah iyo sidoo kale warar arrintaas la xiriira ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa ee marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha 2 February ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararka naga soo gaarayo ayaa waxay tilmaamayaan in kulamo isdaba joog ah ay saacadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ku lahaayeen xubnaha madasha samata bixinta Soomaaliyeed shirkan ayaana si gaar ah waxa uu dhacay deegaanka ay markaasi magaalada Muqdisho ay ka degan yihiin madaxda maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland hotelka lagu magacaabo airport oo ku yaalo gudaha xeyndaabka xalane ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno kale ayaana sidoo kale kulamadan si isdaba joog ah magaalada Muqdisho ugu lahaa in ka badan 4 saacadood oo xiriir ayaana kulankan waxa uu ka dhacay hotelka lagu magacaabo airport oo ku yaalo gudaha xeyndaabka xalane ee magaalada Muqdisho madaxda ayaana sidoo kale saacadahaas waxa ay la fagurayeen tallaabooyinka ay qaadi karaan iyo sidoo kale arrimaha ay markaasi ka yeelayaan shirka ay filla Soomaaliya cagajiidka badan ay ka muujinayso kaas oo la qorsheynayay in uu toddobaadkan uu ka furmo magaalada Muqdisho sidoo kale tan wali uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya halkaas oo kaga qayb galayo shir madaxeedka midowga Afrika madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale xubnaha kale ee mucaaradka ugu horeeyay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah mucaaradka ayaana shirkan iyo kulamadan isdaba joog ah waxay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana sidoo kale kulamadan ay diiradda ugu saarayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka hal ujeedo ama sidoo kale hal go'aan oo kama dambeys ah ayayna sidoo kale gaareen taas oo caqabad ku ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud caqabada ugu weyn iyo sidoo kale tallaabada ay qaadeen xubnaha mucaaradka ah ayaana sidoo kale waxay tahay in ay gabi ahaanba ay diideen in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay kula kulmaan filla Soomaaliya iyagoona sidoo kale walaac xooggan ka muujiyay qodobkaas ayaana sidoo kale madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo xubnaha mucaaradku ay ugu horeeyaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xildhibaan Cusable iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo dhamaantoodba ka qayb galay shirkan mucaaradka ay ka soconaya magaalada Muqdisho ayaana waxay si wadajir ah ay qalinka ugu duugeen in aysan marnaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan kula kulmeenin filla Soomaaliya iyagoona sidoo kale tilmaamay in ay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo la xiriira in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu shirkani uu kala qayb galo sidoo kalena uu ka dhaco hotelka lagu magacaabo airport oo ku yaalo gudaha xeyndaabka xalane ee magaalada Muqdisho waxay sidoo kale shaaciyeen in filla Soomaaliya ayna suuragal ahayn in ay kula kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo wararka soo baxayo ay tilmaamayaan in xaalada ammaan dartood ay madaxdan ay markaas ugu cagajiidayaan in shirkan ay kula kulmaan sidoo kalena kulan ay kula qaataan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana wali laga warsugaya isagoona sidoo kale wali aanan cadeynin go'aankiisa kama dambeys laakiin inta uusan maalinnimadii Jimcada ahayd uusan ka bixin garoonka diyaaradaha cadde magaalada Muqdisho waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu shaaciyay in filla Soomaaliya meel aanan hayn in uusan kula kulmeynin xubnaha mucaaradka isagoona sidoo kale tilmaamay in wax kasta laga wada hadli karo
laakiin hadafka iyo sidoo kale masiirka dadka Soomaaliyeed aysan marnaba dawlado shisheeye aysan meerin doonin sidoo hadalku dhigay haddii shirkani uu ka dhaco xindaabka xalane ee magaalada Muqdisho dadka intooda ugu badan walaacay qabaan taasoo la xiriirta in beesha caalamka ay soo fargeliso sidoo kale xubno ka mid ah beesha caalamka iyo kulamadaas ay ka qayb galaan taasoo walaacay inta ugu badan haatan jira sidoo kalena madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya lagala talinayo in uusan shirkani marnaba uusan fashilmin tallaabada iyo sidoo kale go'aankan ayaana waxa uu yahay mid ka duwan go'aanadii hore waana go'aan ay si gaar ah markaas u gaartay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in shirkani markaas uu ka dhaco gudaha filla Soomaaliya ee magaalada Muqdisho shirar isdaba joog ayaana sidoo kale mucaaradku waxay saacadii la soo dhaafay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana sidoo kale la qorsheynayaa in shirarka iyo sidoo kale kulamada markaas la sii ballaariyo laba qodob ayayna sidoo kale mucaaradka intooda ugu badan ay doodan ay ka keenayaan qodobka koobaad ayaa waxa uu yahay wax ka bedelka lagu sameynayo cutubyo ka tirsan dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qodobka labaad oo ah doorashooyinka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay guda gashay gaar ahaan midda golaha deegaanka taasoo iyana lagu tilmaamay in ay tahay mid aysan mucaaradka iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland aysan raalli ka ahayn sidoo kalena ay tilmaameen in aysan marnaba aysan ku raaci doonin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya tallaabo kasta oo ay markaas ay qaadayaan waxay sidoo kale tilmaameen in go'aankan uu yahay kii ugu dambeeyay sidoo kalena iyaga ay markaas ay gaareen qorshahan waxaana sidoo kale muuqanaysa haddii markaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isagana uu ka biidiido in shirkani markaas uu ka dhaco xindaabka xalane ee magaalada Muqdisho in xaaladdu ay si adkaan doonto sidoo kalena ay suuragal ay noqoto in dhinacyadu ay markaas ay ku kala tagaan walaaca iyo sidoo kale walbahaarka ee dadka qaarkood ay qabaan ayaana sidoo kale waxaa lagu tilmaamay ugu horeyn ay muhiim ay tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadato mas'uuliyadda iyo sidoo kale inay xubnaha mucaaradka ay ku raacdo go'aankan waxaanay sidoo kale tahay midda ugu horeyso oo la sugayo iyo sidoo kale go'aanka kama dambaysta ah oo ay tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay markaas ay aqbasho madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo xubnaha kale ee mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho dhammaantood waxa markaas lagu cadaadinayaa in ay markaas ay aqbalaan shirkan iyo sidoo kale inay wada hadlaan masiirkoodana ay markaas ay jaangooyaan sidoo kalena aynan marnaba suuragal lahayn in ay ka tanaasulaan hadafkooda iyo sidoo kale in ay markaas heshiis waayaan haddii dhinacyadu isku imaan waayaan waxaa sidoo kale suuragal ah in beesha caalamka iyo culays siyaasadeed ee markaas ay saari doonto dhinacyada waxaana sidoo kale lagu cadaadinayaa in ay mar waliba ay muhiim ay tahay in ajandahooda iyo sidoo kale qorshahoodu ay iyagu ay la fagurtaan sidoo kalena ay muhiim ay tahay in ay iyagu isla jaangooyaan ayna sidoo kale ka tanaasulaan arrin kasta oo markaas la xiriirta in ay markaas isqabqabsi ay ku dabaqaan tani ayaana sidoo kale waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah cadaadisyadii ugu xooganaa oo markaas la saarayo xubnaha mucaaradka iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale waxa ka harsan wax ka yar 3 bilood taasoo markaas lagu tilmaamay in ay tahay in ugu horeyn markaas laga wada heshiiyo nooca doorasho ee dalku aadayo iyo sidoo kale qaabka loo qabanayo tani ayaana sidoo kale waxay tahay tallaabo kale markaas loo qaadayo dhinaca cadaadiska siyaasadeed iyo sidoo kale in si degdeg ah markaas loogu heshiiyo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la xiriira arrinta mustaqbalka dalka mucaaradka ayaana sidoo kale haatan waxa ka soo biiray madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagana waxa uu sidoo kale uu la kulmay madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland kulankan ayaana maalinimadii shalay ahayd waxa uu ka dhacay hotelka lagu magacaabo airport waxaana sidoo kale ay isla falaqeeyeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo sidoo kale ugu dambeyntii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shaaciyay in salaan uu ugu tagay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shir iyo sidoo kale kulamo gaargaar ayeen sidoo kale madaxda ay yeesheen waxaana kulamadaas inta badan looga hadlayay arrinta siyaasadeed ee wadanka kulamada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ismariwaaga taagan waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa